Xamaas ayaa dagaalkii ugu weynaa abid ku qaaday deegaanada Yuhuudda xoogga kaga haysta Falastiin. Subaxnimadii Sabtida waxay ka weerareen dhulka, cirka, baarashuudka gacan ku samayska ah iyo badda oo ay doomo ku weerareen. Xamaas ayaa kumanaan gantaalo ah ku garaacday Israa'iil. Waxaa taasi dheer in xuduudda u xirnaa oo kala qaybisa Israa'iil iyo Falastiin dhererkiisuna yahay 60 kiiloomitir ay Falastiiniyiintu ka soo galeen Israa'iil, halka ay u adeegsadeen baarashuudyo, kuwaas oo ku xirnaa matooradeeda oo ay saarnaayeen dagaalyahanno, ayaa u sii gudbay xuduudda 40 kiiloomitir ilaa 60, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 300 oo qof, 26 askar ka kooban rag iyo dumar, qaar kale oo maxaabiis ahaan u qabsadeen, sida taliyihii guud ee 22aad ee ciidanka difaaca. Dhanka kale, Yuhuudda oo si ula kac ah u duqeynaysa guryaha dadka rayidka ah, Israa'iil ayaa qaaday duqeymo degdeg ah oo dhanka cirka ah, iyadoo sheegtay in ay beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin mintidiinta Xamaas. Duqeynta waxay la beegsadeen 426 bartilmaameed oo ku yaalla Gaza, iyadoo dhulka lala simay dhismayaal la degan yahay iyo qaraxyo waaweyn. Taasi waxaa ku jirta taawar ka kooban 14 dabaq oo ay ka kooban yihiin guryo badan. Sidoo kalena xafiisyada Xamaas ee magaalada Gaza waxaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen oo ay waxyeello ka soo gaartay boqolaal mintidiinta Xamaas ah. Dagaalkani ayaa socday kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday madax-bannaanida May 14keeda sanadkii 1948. Dagaalku wuu sii xoogaystay iyada oo xoogga kale ee Carabta ay ku biirayaan Carabta Falastiiniyiinta ee weeraraya dhulkii hore ee Falastiin. Dagaalkan ayaa ahaa mid soo bilowday qarnigii 19aad oo ay mar waliba Qaramada Midoobay ku talin jireen in ay si qasab ah dhulka Falastiiniyiinta Yuhuudda qasab ku siiyaan. Sidoo kale, sanadkii 1987 ayaa ururka loo yaqaan Xamaas ee la dagaalama Yuhuudda, iyadoo ku soo xoogaystay dhacdadii shalay u geystay. Alle ayaa inoogu tilmaamay Qur'aanka ilmihii Israa'iil 1400 oo sano ka hor. Suuradda 17aad Al-Israa, aayadda 3 iyo 4. Yuhuudda oo ku faani jirtay difaaca cirka adduunka ugu sarreeya ayaa heesanaa Sabtidii way ku guuldareysteen inay celiyaan baarashuudyada yaryar. Israa'iil waa waddan ka mid ah waddamada ugu sarreeya sirdoonka, laakiin waxay ku guuldareysteen inay sii ogaadaan